haddii aad aragto qof isagoo sooman intuu is-ilaaway wax cunaya ama wax cabbaya ama wax soomkii ka jabinaya waxyaabaha soomka jabiya wax ka mida isagoo samaynaya haddaad aragto qof sooman laakiin is-ilowsan miyaynu uga digaynaa waxaynu leenahay war ka joog waa sooman tahay miyaad is-ilowday mise waxaynu leenahay maya ilaahay baa quudiyey ee u daaya su'aashaa waxaa inooga jawaabaya sheekheenna sheekh nuur cali jaamac ilaahay subxaana wa tacaala khayr fara badan ha siiyo ka faa'iidaysta marka aynu ka faa'iidaysanno aynu gaadhsiinno walaalo badan oo iyaguna si khaldan u fahansan su'aashan ama aan ka hadalnay qofka halmaamay inaan soonku ka jabayn hadduu wax cuno ama waxado ka waran haddaad adigu aragto qof sooman oo biyo cabaya ama wax cunaya adiga ma baraarujinay mase waxaa leedahay ilaaha quudiyey afka ka qaban waajib waxaa kuwa inaad baraarujido haddaad aamustana adigu waa dembaabe isagu ma dembaabaya laakiin adigu waa dembaabe la isagu waaba halmaansayin sababtoo ah maalin ramadaan qof mukallaf soonka ku ah inuu wax cuno ama waxadaa waa munkar adigii marka munkar weeye waxaad aragtaa nabi maxamedna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi fain lam yastadic fa bilisaanihi fain lam yastadic fa biqalbi qofka hadduu munkar arko waa inuu suuliyaa waajibay kugu tahay wuxuu waa munkar dadka gabal waxaa dhici karta inays yidhaahdaan munkar haddee see ku yahay qofkaanu dembiba loo qori maayee munkarnimada iyo qofka dembi in loo qora isma laazimaan qofkan asaga waxaa ku dhacay wax layidhaha mawaanicu takliif mukallaf maahan qofku markuu ilowsan yahy laakiin shaygu waa munkar uu samayna tusaale waxaad ku fahmi kartaan laba carruur oo saqiiraa oo dariiqa isku dilaya haddaad arag oo birta isla dhacayo dhiiggu daadana munkar mata carruur in la dila saqiir ah waajib waxaa ku ah qofka arka inuu kala qabto xaaraan wey inaad daawataa maxayla dhiig muslimaa socda sow maaha laakiin ayaga ma dembiya loo qora ma loo qorayo marka munkar shaygu inuu yahay iyo qofka inaan dembi loo qorayn iskuma xirna waajibay kugu tahay inaad ka xidhido